waxaan arkayay labadan maalmoodna waxa socday inaan ka faa'iideysto fursadan buuq dhaliyay inay gabdho boorar intay soo qaateen magaaladan abni darro ku sameeynaayaan ay leeyihiin abni ma jiro ayagoo maqasii wato gabdhahaas oo degan guryo waalidiintoodii inaan horta dhahno aaway waalidiintooda ugu horeyn midda labaad magaaladan waa amnigeeda wiilala u dhintay tan kale gabadhii dhibka ku dhacay waxaan ka raadinay gobolka Banaadir meel walbaan ka raadinay waa laanahay marka ma ayaga gabadha soo abaabulay oo qorshay wadeenay ahayd waayo falka dhacay iyo hadalkoodii uunba isku xigsaday diinta islaamka shariicada islaamka wax ka baxsan oo aan ku dhaqmi karna ma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'aala na karaameeyay ilaahay yaa diintiisa wuxuu na siiyay suuratul nisaa suurad la dhaho oo xaqeena lagu dhowraayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa na karaameeyo aadana naga dhigay waxaan ka xaq badanahay aabihii xaqa hooyada lama gudi karo laakiin inay gabar intay wadada soo joogsato ay tiraahdo maaragtay waxaan soconaynaa anagoo xor ah adduunka xagee lagu arkay adoon ilaahay abuurtaanahay magaaladan lama suurad xumayn karo ayadaha ilaahay quraankiisana lama beenay karo gabdhahaas tacadiga iyo dulmiga iyo dhibaatada iyo beenta sheeganayo iyo xalanan u dirsanaynaa beesha caalamka la hadlaynaa wadankan beel caalamka ma talisay beesha caalamka waxay caawisaa bulshada Soomaaliyeed madaxan leenahay mas'uuliyiin leenahay waxaan rabnaa gabdhaha islaamaha amniga talaabo sharci waafaqsan inay ka qaadaan culamaa u diinka waxgaradka iyo bulshada gabar rabta iyadoo qaawan inay leedo isku soo duubto xeebaha tagto jasiiro tagto haddana rabto inay intay xijaab soo qaadato boor kale feminista keento qofka yeelay ma jirto mana ogolaanayno waxaan rabnaa inaan u sheegno ilaahay wuu na karaameeyay waxaan haween Soomaaliyeed ma ogolaan karno gabar yar oo habeen barka intay guurayso muuqaalo iska soo duubto maalmaha habeenada jimcada iyo waxay soo bandhigayso aad iyo aad loogu xumaanayo waliba gabadha gacalo la yiraahdo adiga iyo teamkaaga waxaad wadaan kama soconayaan magaaladan waxaan leenahay raali noqo ilaahay na karaameeyay islaamka ka hor gabdhaha kuwa la duugay ahaayeen marka nasriga iyo nolosha iyo quruxda diinteena macaana na siisay kamana yeelayno cid walba laamaha amniga ka codsanaynaa gabadha dhibka loo geystay qof walba oo taqaano wiilashaas laamaha amniga meel taliyihii booliska fadhiistay oo taliyihii qaybta guud loo diray oo hay'adihii amniga amar ay dhiibeen waxay dhowcilay intay boor u soo qaadato uga hadasho meesha ma taalo meesha u sareysay bulshada ciidanka ilaalintooda iyo badqabkooda ka wakiilka ah General Asad Diyaaniyo maxaan ku dhahaa iyo macallin Mahdi taliye macallin Mahdi oo qaybta guud gobolkan ka mas'uula ayaa ka fariistay amara laga dhiibay marka boor gabari soo dhiibtay oo meel ay ka keentay aan garanaynin gabdhaha waxaan leenahay boorarkiina la laabta meeshan kama soconayaan xaqa iyo sharafta iyo xuquuqda aad raadinaysana diintaada ay kugu dhanteen suuratul nisaa soo akhriso waana mahadsantihiin